بسم الله. مسألة دheer waay. waa mas'alo waqti badan u baahan. Marka waxaan rajaynayaa inaadan dhibsanin waana mas'alo dhinaca caqadika ah. Mas'aladu masaa'ilul qadar weey. Saailkuna wuxuu tilmaamayaa xadiidkii Cabdullah ibn Mas'ud ee saxiixaynka ku yilay inna ahadakum يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه فيرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قفكين منك هو يدي wuxuu ku jirayaa 40 maalmood isagoo biyihii shahwada candhuufta oo ka ah 40 kalena dhiig fadhiyo ahaanaya calaqatan 40 kalena cad yar oo hilib ahaanaya 3 waa imis 120 halka way 120 ka tirada horta meesha ka timid xadiidku wuxuu leeyahay si wadayo kadib baa malag loo soo diraya 4 baana la soo faraya risiqiisu muxuu noqon doonaa maalinkaas la qoraya ajashiisu goormu dhiman doonaa maalinkaas la qoraya amalkiisu muxuu ka shaqayn doonaa maalinkaas la qoraya muxuu ku dambeyn doonaa shaqi iyo saciid mid aakhira janna galiyo mid naar galay inuu yahayna markaas la qoraya su'aashu halkaas ugu socotaa waa xadiidka baabul qadarka xadiidkana dad baa ku wareerayo haddii aahaartu ku asaxaan qisada laga wariyay Amr ibn Ubayd oo kale tal mu'taziliyo diinta wax looga baxay sameeyeen macnaha xadiidku tilmaamayo iyo su'aasha sidan uu weydiiyay oo kalena nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wa sallam waxa rasuulka ilaahay totaantan gaarin marka uu nabigu taas oo kala tilmaamay oo xadiidkii rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf qalimkiina wax lagu qoriyana waa la kor yeelay waraaqihiina waa ingegeen marba nabiga la weydiiyay rasuulka waxaan sameeynayno waxaduuna bilaabayna mise wax hore u qornaa way waxa kaas wixii hore u qornaa way markaas waxa ka shaqeynayna ni walba qarinkiisa wuxuu qornaa natiijada geli markaas wuxuu yiri shaqeey icmalu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah qof walba wixii loo abuuray oo isaga ka qarsoon baa la u fududeynaya intaasay horta su'aashani ka soo baxaysa wana su'aal meesha ku jirto dadku is weydiinayaan laakiin hal qaacido aan ku siiyo hal mas'alana aan bidhaamiyo kadibna jawaabta aan soo dago qaacidada aan ku siiya markii xukun sharci ah la gaarayo nusuusta sharciga ee mas'alada ku saabsan baa la isu wada geeyaa inta waa nusuus laakiin in kala jirta in wax iska bedelayaan tilmaamaysa maxaa kamida ilaahi wuxuu leeyahay thumma qadaa ajalan وأجل مسمى عنده إلهي أجل يا وقت وحكمي وقت كلنا أكتسو كم عابية هل كان الله أجل ذي الله وقت نيتشران بيت المات وحاكم إذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وحرب إلهي ترى وحربنا ودايا وحقرائن لا ترى يا هل كم وقت وحكر إلهي ليهي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب qofkii la cimrisiyo loo dheereeyo iyo qof cimrigiisii la soo gaabiyo qayb laga jaro hatta cimrigaagi in gadaal loo jirjiidi karo iyo gadaalkii u jiidmi lahaa cimrigaagi in qayb laga goyn karo oo cimriga amartii isbedelayso bay hay'adka tilmaamayaan xadiis baa jirta saxiixa ku taala oo nabigu leeyahay man ahabba an yunsa lahu fi atharihi an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi فليصل رحمه ninkii doonaya risiqa in loo waasiciyo cimrigana loo dheereeyo qaraabada xiriiriyo riwaayad baa ku daraya falyattaqillah ibn hibban iyo walyasil rahima ilaahay ka cabsado qaraabada xiriiriyo halka waxa ka muuqata cabsida ilaahay iyo qaraabo xiriirintu cimriga ay dheeraysaa halkaas ka muuqata qadarkaas xadiidkii tirmidhi iyo qeyrkii warinayaan suranku soo nabigu ma dhihin la yurudul qadaa illa du'a وحي إلهي حكمي دعاء الله بري باعلية حتى بقدركي وعلين كاربا حديث كانت المامية نصوص شرعي الدعاء أو لنا إلهي الله بريو
dee ilaahay haddii aan waxbaba wax iska bedelaynin ducada soo bilaash ma maxay taraysaa markaad leedahay qunuudka waqini sharra maa qadayta ilaa waxaad xukuntay sharkiisa iga badbaadi haddaan lagaaba badbaadinaynin maxaa ducadan laysu barayay ولذلك waxaa ka sugan Umar radiyallahu anhu warḍaahu salaf fi qayb kamida inay dhihi jireen Allahumma inta kunta katabtani fi ahli as-sa'adati fathabbitni fihi wa in kunta katabtani fi ahli ash-shaqawati faktubni min ahli as-sa'adati ilaahu ku xun hadaad ii qortay hadda ka hor ilaahu iga bedelo ku fiican igu qor ku fiican hadaad igu qortay halka igu daa ducada saasay salaf ku faasan oo ducada maala yaani haday tahay oo ruuxo bedelaynin Umar ya ragiyaha aqeedada ka xumeed miya tana waa nusuus kale qabso xukunka inuu gaarayna marka waa inuu noqdo nusuustii hore iyo nusuustan dambe wax uu ururinayo isu geynaya waa inuu noqdaa laakiin tii hore dunida isaga dhago tan dambe u dayacaya tan dambe mid haduu isaga dhagana tii hore u dayacaya man ka afeeftayo Faisal waxaan iri misalan waa aqeediye misala qadar oo adage halaydu qaata waqtiga waxaan rabaa inaan iraahdo marka qadarku waa mas'ala dhib badan weysiisa haduu galo culimadu waxay yiraahdaan qadarka dad aad u sii dhuuxdo qorraxda aad u fiirisay la mid tahay indhaha baa ku xanuuni waad ku sii wareeri qadarka dad si qodqodo waad ku sii wareeri ama Soomaali hadan ku soo koobo waxaan dhahaa war midha barde duuduub baa loo liqaabalay hadaad kala jeexdo wax dhaqdhaqaaqay iyo wax madmado inaad ka soo saawlay kana tuur wixii dhanba banaanka kaga dhic marka qadarka baabul qadar waa midha barde duuduub baa loo dhiqaa qorraxda loo fiiriyay barashiya aqoon lama kororsado indha xanuun iyo wareer baa laga qaada qadar aad loo fiiriyo aad loo daba galayna wareer iyo shaki baa laga qaaday aad loo magalay sadar jamhuurta ummadda waxaan ku boorin lahaa baabul qadar midha barde duuduub ku liqo aad hoos gelina laakiin masalada maadaama aan guda galay hal qadidaan ku idin ku baraarujiyay marka intaana nusuusta jamcinin masalada ku baraarujinay waxa weeye maqaadiirtu waa saddex qadarka la qoro waa mid sanada iyo mid umri ah iyo mid looxul mahfuudka ama kitaabada qadarku waa saddex midka sanadlaha ah leelatul qadriga hawl sanadeedka malaa'ikta loo xil saaray loo dhiiba oo ilaahay tuuleeyahay weeye fiha anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim arrin kasto ilaahay xukumay habeenkaas la qaybiya sanadka inta roob la rabo inta dabayla inta ajal laga qaadayo malaga shaqa sanadeed baa loo dhiibaa wanaka bini aadamku ay ka iqtibaaseen ay ka soo qaateen xisaab xirta sanadkii iyo hawl sanadeedka la isu dhiibiyo ta qadarka waxba iska bedeli kara wixii loo soo dhiibay kan noqo waa la dhihi karaa ama isagoo sababaysan waa loo dhiibi karaa tan labaad waa kitaabada umrigeehe marka ilmuhu dhalanaya la qorayo iyana waxba iska bedeli kara way sababaysan tahay tasaddexaadi waa talawxul mahfuudka waxba iskama bedelo taa waxba iskama bedelo mas'aladaasi waa mas'alatul asbaab lawxul mahfuudka waxa ku qoran isma bedelo tan laakiin way isbedeli kartaa haddaba nusuusta waxay ku lagu jamcinayaa waxaan isbedelin waa laba xaalo